dadadii huwaatanteeni dariiqyada magaalada indhuhu daawan bilidooda firbaan dadkaygow aaday daawo ku tahay darabsiiya dowladda bulshoy door kostay tahay diinteena weeye dad yahuudiyda qashinkoo dhan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيم بعمل البض عالم ككتشوكتان كسر هذا قول شو ميديا إسلامر كان مانتا كليب كانوا حنندكو كسر قد بنينا نظافة يوليبه سامينتا أي كل هذا هاي نولشينا حتى بقى إنكستو أي نقصون هاي إن نظافة أي آد وهو ناكسنت هاي عافيمات كينا مانتا كمسو قادنينو inaynuuga hadallo dhanka caafimaadka laakiin waxaynu ku soo qaadanaynaa saameynta ay maalin walba nolosheena ku leedahay nadaafad xumadu. waxaynu soo qaadanaynaa laba qodob oo aad u muhiima kuwaasoo kala ah positive-ka iyo weliba energy-ga la yiraahdo negative-ka ee ay ina siinayso nadaafad xumadu. haddaba marka aynu ka hadlayno positive energy aynu ka helo nadaafadda sidee ayuu inoo saameeyaa positive energy-ga marka aynu soo qaadano maalin walba nolosheena sidoo u saameeyo. markii ay nadaafadaadu wanaagsan tahay waxaad ka helaysaa negative energy-gaas aadka u wanaagsan ee positive-ka ah oo ku caawinayo ilaa marka aad hurdada ka soo kacdo iyo ilaa iyo marka aad seexanayso. haddii marka nadaafadaadu wanaagsan tahay waxaad helaysaa dareemo wanaagsan, waxaad helaysaa fikir wanaagsan, waxaad helaysaa deganaan, xasilooni dheeraad ah iyo weliba in aad noloshaada ku faraxsanaato. arrinta kale ee iyaduna ka soo horjeeda taas ayaa ah haddii nadaafadaadu ay xumaato in markaasi aad helaysid energy-ga loo yaqaano negative energy kaasoo markaasi saameyntiisu ay aad u weyn tahay kuna siinaya dareemo aan markaasi u wanaagsaneyn noloshaada, inaad si qaldan u fikirto, inaad maaragtay caajis badan yeelato iyo inaad markaasi aadan markaa ku raaxaysan noloshaada. sidee marka ugu dadaali karnaa nadaafadda si aan u helno positive energy? waxaynu u baahannahay inaynu yeelano qorshe maalinle ah kaasoo kaa caawinaya in aad markaasi ku guulaysato in noloshaada oo dhani ay noqoto mid aad u qurux badan, fikirkaadu uu wanaagsanaado, naftaaduna ay xasisho. marka aan soo qaado ama aan tibaaxo oraahda oranaysa al-nadaafatu nusmu min al-iimaan oo micnaheedu yahay nadaafadu waa iimaanka barkiisa, waxay noo cadeynaysaa in nadaafadu ay tahay mid aad u muhiima oo aynu u baahannahay mar walba. si aynu u joogteynana waxaynu u baahannahay inaynu samaysano qorshayaal aynu markaasi ku horumarinayno dhanka nadaafadda. haddaba qofka ku guulaysan kara inuu nadaafad sameeyo joogto ah muxuu u baahan yahay? laba qodob oo aad u muhiima ayaynu soo qaadanaynaa oo hoos imaanaya qorshaha. labadaasi qodob waxa ay kala yihiin maalinta iyo waqtiga. maalintaada u samayso qorshe wanaagsan, isla markaana waqtiga aad sameynaysid qorshahaasi u samee waqti go'an oo aad markaasi ku horumarinaysid. tusaale marka aan kuu siiyo, dadka qaar ayaa jira toddobaadkiiba 2 jeer wax la yiraahdo deep cleaning sameeya. isla markaana deep cleaning-ku waa nadaafad qoto dheer inaad sameysid oo aad meel walba oo aad ku tabaysid in dhas ama qashin ama ay wasaqi gaartay in aad gacanta si wanaagsan u marinaysid una sameynaysid markaasi si dhab ah oo aan kormarmar ahayn. marka waxaad u baahan tahay maalinta aad sameynaysid deep cleaning-ka ama nadaafadda qotada dheer in aad qortid oo aad ku dhaqantid jadwalkaas aad samaysatay ama planka ama qorshaha aad samaysay. kaba soo qaad waxaad rabtaa inaad samaysid maalinta sabtiga ama jimcaha ee fasaxaada kuugu soo horeeya nadaafad qoto dheer. waxaad u baahan tahay timeka inaad qortid. ma waxaad ka dhiganaysaa markaad hurdada ka soo kacdid mise waxaad ka dhiganaysaa waqtiga aad maaragtay
hawlaha kale ee haddaad caruur leedahay, haddaad hawlo kale leedahay, ama haddaad waqti dheer hurdaysid kadib ayaad samaynaysaa. waa inay marka kuu qoran yihiin maalintii waqtigii aad samayn lahayd oo aad ku dhaqantid inaadan waqtigaa kadib dhiganin. isla markaana waqtigaa waxaad u baahanaysaa hal qodob oo aada u muhiima, halkaa shay wuxuu yahay ka hor intaadan nadaafada samaynin waxaad samaysaa jimicsi. wax walba oo naftaada marka ay u baahan tahay, kaba soo qaad haddaad cabtid kafeega oo kale, waxaad u baahan tahay inaad kafeegii iyo quraacdii iyo wixii aad u baahnayd aad si deganaana ku samaysatid. haddii aad tahay dadka maaragtay biyaha badan jecel inay xilliga hore cabaan, sidoo kale aad samaysid. waxaa kalood u baahan tahay haddii aad markaasi aad isleedahay energy aad u baahan tahay inaad jimicsi samaysid. markaad samaysid jimicsiga waxaad noqonaysaa qof firfircoon. haddaad wax yar orodid ama aad samaysid waxyaabo yaroo jimicsi ah, jirkaaga oo dhan ayaa shaqaynayo. markaas waad soo kululeynaysaa, kadibna shaqadii ayaad ku dhaqaaqaysaa. firfircoonida marka aad hesho kadib waxaad samaynaysaa waqtigii iyo timekii baad ilaalinaysaa, kadibna hawshaadii ayaad ku dhaqaaqaysaa. waxaadna ku guuleysanaysaa markaa inaad wixii aad samaysid oo aad dhammaystirtid. waxaan kugula talinayaa inaadan hawl intaad bilowdo aadan dhex uga tegin, leanno haddaad dhex uga tagto kusoo noqoshadeeda ayaa laga yaabaa inaad ka caajisto. marka haddaad hawl bilowdo waxaad noqotaa qof hawshaasi dhammaystira, isla markaana waxaad noqonaysaa qof ay hawshii sii jeclaado oo sii wada. laakiin haddaad ka tagtid waxaad la kulmi doontaa inaadan haddana dib ugu soo laabanin. sidoo kale waxaad u baahan tahay waxyaabo muhiim u ah nadaafadda gurigaaga, in markaa aad samaysid alaabta aad dhiganaysid inaad iska yaraysid oo aanad marnaba isku badanin alaabta aad guriga dhiganaysid. waxaa kale oo aad samayn kartaa dharka wixii aadan u baahnayn inaadan sooba iibsan, ama hadday kugu bateen aad iska daadisid si aad ugu guulaysatid nadaafadda markaasi gurigaaga. intaa markaad samaysid waxaad noqonaysaa qof firfircoon, indhihiisu ay arkaan wax qurux badan, dhiirigelin iyo waxay ku siinaysaa positive energy. waxaa kaloo ku siin doontaa markaad nadaafadda ku guulaysatid, markaad kasoo kacdidba inaad noqotid qof firfircoon. laannahu waad aragteen maalin walbo markaynu salaada tukanayno 5 mar ayaynu nadaafad sameynaa oo aynu dhaqnaa gacmaheena, lugaheena iyo weliba wejiga. isla markaana marka aynu salaada tukanayno waxaan sameynaa wejigaagii ayaad dhulka dhigaysaa, dhiiggii markaa jirkaaguna ilaa tin iyo cirab uu gaaraya. marka waa qayb jimicsiga ka mid ah taasina. intaa markaan uga gudubno positive energy-ga, waxaan galaynaa negative energy-ga. negative energy-ga wuxuu bilcaks ku yahay ama uu kasoo horjeedaa positive energy-ga. kadib maxaa dhacaya marka nadaafadaada xumaato oo aad energy-gaas aad heshid? waxaa imaanaya inaad ka caajisto waxyaabo badan oo aad qaban lahayd. waxaa kaloo imaanaysa in fikradaadu isbedesho oo aad noqotid qof maaragtay aan si wanaagsan u fikiraynin. waxaanaad dareemaysaa dareemo aanan qurux badnayn ama aadan jeclaysan lahayn. inta badanna meeshii aad iftiin iyo caddaanka arki lahayd waxaad ka arkaysaa wax madow, laannahu energy-ga gurigaaga ku jira ayaa ah mid markaasi noloshaada saameynaya. sidaa darteed ayaan u baahnaynba in aad markaasi energy-gaa la kulantid. si aad uga taxadirtidna waxaad u baahan tahay in aad nadaafadaada hagaajisid. marka aynu taa halkaa uga gudubno labadaas qodob ee maanta aynu diiradda saaraynay, kilibkan ma doonay inaan badiyo, waxaan ugu talagalay inaan soo koobo. markaad dharka iska yareyso oo aad gurigaaga alaabta aad dhiganaysidna ka dhigtid wax aad u yar oo aad ka adag tahay, toddobaadkii 2 maalinna aad samayso deep cleaning-kii ama maalin aad samayso, waxaa kaliyaad u baahan tahay maalinta inaad joogtaysid aroortii markaad soo kacda ama aad waqti u heshid inaad wax yar dhaska un iska qaadid, ama aad markaasi hawl aan badnayn oo 30 daqiiqo aan ka badnayn aad maalin walba qabatid. waxaana kuu fududaanaya hawsha gurigaaga, fikirkaagana wanaagsanaan doonaa, waxaanaad noqon doontaa qof ku guuleysta fikirkiisa iyo nolol maalmeedkiisii inuu wanaajiyo.
waxaa kaloo jirta in aad la kulmi kartid qof nolosha maaragtay energygaasi saameeyey. waxaan kugula talin lahaa haddii aad aragtid qof markaa la kulmay energyga ama ku dhex jira hawsha ayada ah ee negative energyga, inaad talo wanaagsan siisid, inaadan ku caynin, inaadan ku xamanin, inaad markaasi ka caawisid wixii aad ka caawin karto. waayo adduunka waa ay dhacdaa, dad badan oo waxaa la arkaa markaasi runtii ay 30 sannadood aan wax nadaafada sameynin, 20 sannadood aan sameynin, laakiin shirkado gaar ayaa loo diraa, kadibna nadaafadaasi waa laga caawiyaa. kadibna qofkii wuxuu noqdaa qof hawsha ka dhex baxa oo joogteeya nadaafada. marka ceeb maaha, qofka waxa u keeni karaa waxyaabo saameeyey, sida inuu dhibaato la soo kulmay, sida inuu rajabeel ku dhacay. waxyaabahaasoo kale ayaa keeni kara qofka inay nadaafadu ka xumaato, laakiin marnaba caafimaadka ayay taasi hoos imaanaysaa, wax la isku caayana maaha. haddii aad marka maalin walba aad ku dhaqantid jadwalkaas nadaafada, waxaad la kulmi doontaa positive energy. uguma talagelin inaan dheereeyo clipkan aan idiin soo duubay. tan iyo intaaynu barnaamij aan dhehe clipkan oo kala ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. fadlan share garee oo subscribe garee channelka. waxaan idiin soo dhigi doonaa waxyaabo aad u muhiima oo noloshiina caawinaya oo kala duwan.